waan ku salaamay saaxiib su'aalaan ku weydiiyey horta weligaa aabbaha ma kula dardaarmay qisada maanta waxaa weeye aabe la dardaarmaya wiilkiisa aabba waayo arag u ah dhanka dhaqanka arrimaha bulshada iyo noloshaba ayaa wuxuu la dardaarmay wiilkiisa oo markaa gurdoon ahaa wuxuuna yidhi wiilkaygiiyo intaadan dhex dabaalan badweynta haweenka dumarku waa 7 nooc ee maankaaga ku hay koowaad ildheer waa gabadha tiraahda wixii cusub caalamka jecel isla markaana ka war haysa waxa cusub ee maanta soo baxay hadday tahay alaab ama wixii la mid ah dhegdheer waa gabadha ninkeeda kula dagaasho waxa ay soo maqashay iyadoo aan hubsan xaqiiqada carab dheer waa gabadh qaylo badan had iyo jeer aale ninkeeda ku furta dacwad iyo dagaal xilliga nasashada sidoo kalena aanay cid kale ka baxsan roole iyo carruurba gacan dheer waa gabadha dagaalka uun u taagan had iyo jeerna dhexdu xidhan tahay lugdheer waa gabadha had iyo jeer aale gurigeeda ka maqan dhinkeeduna yimaado iyadoo aan joogin joogdheer waa gabadh qurux badan ilaahay siiyey laakiin dhanka gurigeeda ka dayacan haddana isla weyn oo waxay iyadu samaysay sanka ka taagtaa garaadheer waa marwo dumartan ugu fiican qurux ahaan aad uma qurux badna laakiinse waxay leedahay quruxda dahsoon ee ah edabta iyo akhlaaqda sariigashada iyo xishoodka afgaabnida iyo wixii la mid ah aqalkeedu waa udgoon badan yahay waana goglan yahay moraal iyo macnawi ahaana ninkeeda waa u dhistaa nooca 7 ayaa ah raaliya ninkii helaa uu farxad kula ruceeyo wuuna u soo xiisaa la jooggeeda ninow saaxiib xilliga ugu badan ee la isqaldaa waa xilliga shukaansiga ka fiirso waan ku dhihi lahaa haddaba gabadhay adigoo aan waxba naga qarinayn 7 nooc ee haweenka ah tee baa tahay kommentiga noogu reeb saaxiib haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir mahadsanid